su'aal horta yaa yidhi raggu ma garanayaan jacayl. dhab ahaantii aniga ma ogi meesha ay ka timid fikradaasi, balse waxaan ogahay raggu inay yihiin kuwa ugu daran ee jacaylka la dhibtooda una mara rafaadka ugu badan. ma doonaysaa daliil? ila fiiri taariikhda qays iyo leyl. yaa u dhibtooday jacaylka? dabcan qays wuu u dhintay jacayl uu qabo leyla darteeda. yaa kaloo doonaysaa romeo iyo juliet? dabcan romeo ayaa u dhintay jacayl, kadibna julietna waa iska daba dishay soo maahan, laakiin qofka ugu horeeya dhintay wuxuu ahaa romeo. yaad kaloo doonaysaa? waan ku maqlaya hadda waxaad leedahay boodhari iyo hodan. waa runtaada, waa sidaas, balse yaa u dhintay jacaylka? boodhari ayaa u dhintay. haddaba yaa laguu sheegin nimanku inaysan jacayl garanaynin. nimanku waa kuwa ugu daran ee jacaylka u dhibtooda oona nafsadooda u hura. miyugu racsan tahay midaas? haddaba kaalaynu bilowno videoga. أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا. السلام عليكم. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. ku soo dhawow fikrad. magacaygu ayuub yuusuf sakiin. qof ayaa isoo weydiiyey wuxuuna igu yidhi ayuub saan ku ogaan karaa qofka aan jeclahay? ma jiraan calaamado aan ku garan karo inaan qofkaasi jeclahay? haddaba adigan haddii aad isweydiinaysid su-aashaas oo kale aad doonaysid inaad ogaatid in qof aad jeceshahay iyo in kale, ama calaamadaha lagu garto qofka adiga aad jeceshahay, haddaba muuqaalkan adiga ayaan kuugu talagalnay. waxaan kula wadaagi doonaa 5 calaamadood oo aad ku ogaan kartid in qofkaasi adiga aad jeceshahay, qofkaasi inuu yahay qofka uu qalbigaaga doonayo. calaamada waxaad ku dareemaysaa raaxo marka aad la hadlaysid. qofkan waxaad jeceshahay mar walba inaad la sheekaysatid, marna kama daalaysid inaad la hadashid. mar walba waxaad dareemaysaa in waqtiga uu kugu yar yahay. waxaa laga yaabaa inaad isla wada hadashiin saacado oo dhan, balse waxay kula tahay saacadahaasi muddo aad u yar. qofkan waxaad ku dareemaysaa raaxadaada. waxaad ka cabsanaysid ma jiraan, sidaad rabtid ayaad u hadlaysaa. marka qofka aad sidan ku dareemaysid oodan marnaba ka daalin la sheekaysigiisa, oo aad farxadaas oo dhan aad wada dareemaysid markaad la sheekaysanaysid, ogow qofkan inaad jeceshahay. calaamada labaad, waxaad jeceshahay la joogistiisa, waxaadna ku dareemaysaa farxad aan caadi ahayn. markaad qofkan la joogtid waxaad dareemaysaa farxad aad u weyn. ma jiraan wax kaa maqan adduunka oo dhan, waxaadba u haysataa inaad haysatid wax walba aad doonaysay. marka aad farxadan dareentid oo aad u jeceshahay qofkan inaad mar walba la joogtid oo aad mar walba aragtid, ogow qofkan inaad jeceshahay. calaamada saddexaad, waad u xiisaysaa in badan. xiisayntu sideedaba waa calaamada jacaylka soo ma ahan. qofka aad u xiisaysid macnaheedu waxay tahay inaad jeceshahay. haddaba qofkan waad la sheekaysanaysaa ama waad la kulmaysaa, haddana muddo yar kadibba waad u xiisaysaa. waxaad jeceshahay inaad mar kale u laabatid, inaad mar kale la sheekaysatid, inaad mar kale la joogtid, inaad mar kale aragtid. marka aad dareentid xiisahan aan dhammaadka lahayn, ogow midaas inay calaamad u tahay inaad qofkan aad u jeceshahay. calaamada afaraad, waad ka fikiraysaa mar walba. wax walba ood ku mashquulsan tahay, wax walba ood samaynaysid, waxaad arkaysaa mar walba qofkaasi inuu maskaxdaada ka dhex guuxayo. waxaad arkaysaa qofkaasi inuu maskaxdaada ka shidan yahay mar walba. waad ka fikiraysaa mar walba. wax walba ood samaynaysid waad ka fikiraysaa mar walbana waxaad arkaysaa fikirkaaga inta ugu badan inuu qaatay qofkaasi. haddaba waan kaa fikirayaa macnaheedu waxay tahay waan ku jeclahay. qofkaad in badan ka fikirtid waad jeceshahay. calaamada shanaad, waxaad ku celcelisaa magaciisa ama magaceeda mar walba. xitaa mararka qaar adiga oodan ogeyn ayaad waxaas arkaysaa inaad qofkaasi magaciisa ku dhawaaqday, inaad u yeeraysid ayaad arkaysaa. iskaba dhaaf, marar qaar waxaa laga yaabaa inaad saaxiibadaada ku dhex jirtid oo aad doonaysid inaad qof u yeertid oo aad ugu yeeraysid qofkaasi aad jeceshahay magaciisa ama magaceeda. haddaba marka aad isku aragtid calaamadan inaad jeceshahay mar walba inaad sheegtid qofkan magaciisa oo aad mar walba carabkaaga uu saaran yahay qofkan magaciisa ama magaceeda, ogow inuu jacayl ku hayo oona qofkaasi jeceshahay. haddaba sidan waxaad ku haysataa 5 calaamadood oo aad ku garanaysid qofka adiga aad jeceshahay. haddii aad isku aragtid calaamadan, ogow qofkaas inaad jeceshahay. waxaana kuula dardaarmayaa inaad u sheegatid jacaylkaaga intaan qofkaasi lagaa dafin, waayo ma jiraan wax ka xanuun badan qof aad jeceshahay oodan u sheeganin kadibna qof kale u sheegta, oona sidaasi aad ku weysid jacaylkaagii nolosha. haddaba tan iyo intaaynu goorow kaga kulmi doono hadduu alla weyne ogolaado, waa saaxiibkaaga guusha oo kule mar walba mahadsanid, hana hilmaamin weligaaga jacayl la'aan waa nolol la'aan. الغيم حتما ينجلي والشمس في جوف الظلام ستنتصر. su'aal horta yaa yidhi raggu ma garanayaan jacayl? dhab ahaantii aniga ma ogi meesha ay ka timid fikradaasi, balse waxaan ogahay raggu inay yihiin kuwa ugu daran ee jacaylka la dhibtooda una mara rafaadka ugu badan. ma doonaysaa daliil? ila fiiri taariikhda qays iyo leyl. yaa u dhibtooday jacaylka? dabcan qays